Saadaasha tamarta cusboonaysiinta, hal-abuurnimada iyo caqabadaha ku gadaaman guuritaanka ilaha tamarta la cusboonaysiin karo. Barnaamijkeena maanta waxaan ku sahaminaynaa tartanka loogu jiro tamarta la cusboonaysiin karo. Adduunka oo dhan, dowladaha iyo shirkadaha waxay raadinayaan habab cusub oo looga guuro shidaalka fosilka. Tamarta la cusboonaysiin karo sida qorraxda, dabaysha, biyaha, iyo biomaska ayaa soo bandhigay fursado xiiso leh. Tusaale ahaan, tiknoolajiyada qorraxda ayaa horumar weyn sameeyey, taasoo suurtagelinaysa in si wax ku ool ah loo kaydiyo tamarta. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha waa weyn yihiin. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn waa kaydinta tamarta. Tamarta la cusboonaysiin karo ayaa ah mid aan joogto ahayn, taasoo keentay baahi loo qabo habab kaydin oo hal-abuur leh. Maalgashiga ayaa sidoo kale ah arrin muhiim u ah guusha tamarta la cusboonaysiin karo. Dhisidda kaabayaasha loo baahan yahay iyo tiknoolajiyada kaydinta tamarta ayaa u baahan maalgelin xooggan. Waddamada horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa siyaabo kala duwan u wajahaya tartankan. Waddamadu waxay leeyihiin hamiyo kala duwan iyo kheyraad dabiici ah oo kala duwan, taasoo saamaynaysa xulashooyinkooda tamarta. Iskaashiga caalamiga ah ayaa muhiim u ah xallinta caqabadahaas. Wadaagidda tiknoolajiyada, cilmi-baarista, iyo maalgelinta ayaa kordhin kara horumarka iyo helitaanka tamarta la cusboonaysiin karo. Inkasta oo caqabadaha jira, horumarka laga gaaray tamarta la cusboonaysiin karo waa mid rajo leh. Tusaale ahaan, qiimaha tamarta qorraxda iyo dabaysha ayaa si weyn u dhacay sannadihii la soo dhaafay. Soo bandhigidda tamarta la cusboonaysiin karo ee bulshooyinkeena ayaa muhiim u ah la dagaalanka isbeddelka cimilada. Waxay bixisaa fursad aan ku yarayno qiiqa kaarboonka annaga oo abuurayna dhaqaale cagaaran. Ugu dambayntii, tartanka loogu jiro tamarta la cusboonaysiin karo waa mid aan ka fursan karin. Waa inaan si wadajir ah ugu wada shaqaynaa sidii aan u gaari lahayn mustaqbal waara oo cagaaran, annaga oo ka faa'iidaysanayna horumarka tiknoolajiyada iyo iskaashiga caalamiga ah.